kulan wanaagsan waa markale iyo barnaamijkeena sheekooyinka jacaylka sheekada maanta sheeko aad u xiiso badan oo muddo dheer sheekada magaceeda waxa la xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka sheekada waxa qoray Cabdiraxmaan Maxamed guud dhawaan la soco sheekadan jacayl iyo jihaad buugani waxa uu xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhab ah waa qiso xambaarsan dhacdooyin ay dandamiyeen dhalintii u soo joogtay dharaaro badan oo qisadan lagu xusay waa qiso ay ku kulmeen 3 hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay waa jacayl jihaad iyo haajiraad waa qalinkii Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Barwaani ee dhawaan halkan kala soco waa mar kaleeta iyo sheekadeeni xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo had iyo jeer idiin soo jeediyo Guuleed Cabdisheekhash qaybtii 28aad ee sheekadu waxay inoo joogtay hodan oo Subeer la soo hadashay isla markaana uu u sheegay inuu guursanayo Salma iyaguna walaalnimadii ay isku barteen ku ekaadaan dhinaca kale waxaa soo socota oo Nairobi ka soo tooshay Salma si ay Subeer isku guursadaan hase yeeshee waxa aanay ka warhaynin warka xun ee Subeer uu la sugayo in aabihii uu weli diidan yahay guurkooga bal haddaba aynu u gudagalno qaybtii 29aad ee sheekada iyo sida ay Salmi u wajahdo warkaas naxdinta iyo lama filaanka ku noqon doona Salma saaka ayay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyadoo aad u faraxsan rajaynaysana jacaylkoogii iyadii Subeer ee soo tahnaa muddada 6 sano ka badan in la joogo gabagabadiisii iyo dhammaadkii halgankii adkaa ee ay u soo mareen sidii ay lamaana isjecel oo guri xalaala wada dhista u noqon lahaayeen Subeer wuxuu isagu ku jiraa xaaladii ugu adkayd ama maalin kamida maalmihii ugu qaraadhaa tan iyo intii ay Salma isbarteen waxaanu ku dhicilaayay sidii uu ula hadli lahaa Salma ee uu ugu sheegi lahaa go'aanka adag ee uu aabihii ka qaatay guurkeeda Subeer habeenkii oo dhan muuseexan kolba telefoon buu soo qaadayay haddana wuxuu isiraahdaa xageed uga bilowdaa gabadhan aad soo lugaysay ee aad daraada u soo dhooftay wuxuu habeenkaasi baaxadig iyo isroolo ku jiraba goor ay tahay 6 aroornimo oo aanu ilaa waqtiga indhaha mar kaliya isku qaban leedka qolkiisuna baqtiin ayuu tiigsaday telefoonka oo yaala geesta bidix ee sariirtiisa waxaanu damacsan yahay inuu la hadlo gacaladiisii Salma waa gabadh xalay si fiican u seexatay oo aanay kaba qasnayn goortanna waxay fadhidaa barandaha gurigooda goor dambe ayay maqashay dhawaaqa telefoonka goorahan badhacay intay si dhaqso ah u habhaabatay kabaheedii ayay u luuday maqsinka fadhiga oo uu telefoonku yaalay salaan kadib Subeer aad ayuu uga naxsan yahay siduu ugu sheegi lahaa arrinkan foosha xun ee xaaladda uu kala kulmay aabihii haddana in yar markay wada sheekaysteen ayuu u bilaabay isagoo ku horreysiinayay erayo dejin iyo waano ah waxaanu yidhi Salmaay wax waliba walaal way iska dhacaan marnabana imtixaanka adduunku waa qaar la inoo qoray waxaan kuu sheegayaa arrin yar ee ha u arkin inay tahay wax labadeena dhantaali kara ama dhaawici kara galgacalkeena walaal shalay ayaan u sheegay aabbo in gabadha aan soo arkooday ee aan rabo in loo geed fadhiisto ay adiga tahay hase yeeshee si aanan filinin ayuu aabbahay iila hadlay waxaanu iigu jawaabay ma yeelayo guurka aad guursanayso gabadha Salma isagoo oo ku sababaynaya duruufihii iyo waayihii xumaa ee ina soo maray walaalo kulli waa waalid oo iyagu meel aynaan waxba ka eegin ayay ka arkaan marka arrintaasi ayaan xilligan kuula soo hadlay intaa markii uu yidhi ayay Salma qaadatay hadalkii iyadoo aad uga naxday go'aanka adag ee uu gaadhay odaygii u noqon lahaa Sodog Salma waxay tidhi waan ogahay Subeerow in jirribaad iyo imtixaan adduun aanu inagu yarayn waxaase loo baahan yahay oo laga maarmaan ah in aynu u adkaysano waan ogahay oo oran maayo muxuu aabbaha sidaa u yeelaya waayo dhibaatadan oo dhan waa mid ka timid xagga aniga iyo reerkayga
waxaa kalaan ogahay in maanta si farxad iyo damaashaad leh la ii soo dhoweyn lahaa hadday ahaan lahayd maalintii 6 sano ka hor aan baajiyey diyaar gurigii ay reerkiinu ii diyaariyeen arooska. isla markaa si kasta oo ay u dhacdo iyo wax kaste oo ka yimaada reerkiina waa mid aan anigu dusha u ridanayo, hana ka yaabin oo ha ka fakarin inaan u arko xumaan. Subeerow ma ihi qof wanaagsan sababtoo ah waxaad tahay qof miskiina oo aad u niyad fiican. reer baanad keliga u tahay wiil, mar walbana waxay doonayaan inay arkaan quruxdaada. taasina waxay sababtay inay igala kaa baqdaan maadaama ay ii yaqaanaan inaan ahay gabadhii waxa la og yahay u geysatay wiilkooga. ereyadani si aad iyo aad ayay u damqeen Subeer. waxaanu yidhi, Salmaay haysa saarin dembi aanad lahayn, ha iskuna sheegin in aad tahay qof dembiilaah. waan ogahay oo kaliba dib weyn baa dhacay dhinac kaste ha ka yimaaday. waxaase loo baahan yahay in aynu yeelano sidii aynu u gaari lahayn guusha aynu doonayno. sidee kula tahay? maxaad se arrin haysaa ka duwan kan aan kuu soo bandhigayo oo ah in haddii odaygu sidaa ku adkaysto diidmada ah in aynu si madax bannaan isugu go'no oo aan ka go'aan goosto reerkayga. Salma ayaa tiri iyadoo sheegaysa sida ula muuqata arrinkani. Subeerow ha hilmaamin, hana iloobin, hana dhalinyaroobin, hana fududaanin. innagana ha inaga dhigin dad waalid caasi ah, reeraheennana yaynaan u soo jiidin magaxumo. miyaad ilowsan tahay 6 sano ka hor maalintii tan oo kale ay innaga inala soo diristay go'aankuna siduu u dhacay, inkastoo wakhtigaas taladu ahayd mid adag oo aynu labadeenuba ku tashanay in aynu badbaadinno hooyadeen. haddana maanta laftigeeda ayaynu u baahannahay in aynu badbaadinno aabbaheen. haddii uu ku dawoobayo, ku fiicnaanayo, ku ladnaanayo, ku qaboobaanayo, kuna qancayo gabadh kale oo uu kuu guuriyo, waa in aad adeecdaa. waxa keliya ee aad heerkan ku soo gaadhay waa ducada waalidka iyo jacaylkooda. waxaanan ku leeyahay maqal hadalka uu kuu soo jeediyey aabbaha. anigu waan ku jecelahay, inta ifka ka dhimanna lagama yaabo in aan nin kale maxaad haysaa idhaahdo. waa ballan aan adiga iyo ilaahay idinka qaaday. Subeer si adag ayuu wakhtigan ula hadlay Salma, waayo xalay oo dhan wuu soo jeeday. in ku dhowaa saacad iyo badhna wuxuu la hadlayaa Salma, markaa maba oga inta badan hadallada uu odhanayo. dhowaan la soco sheekadan jacayl iyo jihaad. buuggani waxa uu xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhab ah. waa qiso xambaarsan dhacdooyin ay dhandhamiyeen dhalintii u soo joogtay dharaaro badan oo qisadan lagu xusay. waa qiso ay ku kulmeen 3 hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay. waa jacayl, jihaad iyo haajiraad. waa qalinkii Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Barwaani ee dhowaan halkan kala soco. Salma miyaad inacday? ma go'aan baad keligaa gaadhay? ma aabbahay baa ku doonaya markii hore mise aniga? maxaadse iila goynaysaa ee aad iigu sheegaysaa hadallada beenta ah? maxaad ii odhan weyday kuma doonayo? goorma ayaynu noqonnay ama aynu ilaa heerkaasi kala fogaanay? sideed ii tidhaahdaa guurso gabadh aan adiga ahayn? maan filaynin inaad hadalladan iyo qaar la mida igu odhanayso. iminkana haddaad sidaa garatay, go'aanka aabbahay iyo kaaga midnaba ma raacayo. waxaan yeelayaana aniga ayay ii taalla. isaga oo aan is-ogeyn ayuu taleefankiisa saaray. waxaan u baxay dibadda. Salma arrintu waa ay ku foorartaa ama kaag iyo yaab ayuu ilaahay u keenay. waxaana hore loo yidhi wax badso wax beel bay leedahay. bal miyay iska oggolaato arrinkii uu ula yimid? intay ka caafariisatay oo dhaqaaq joogsatay ayaa iyadoo dhafoorada haysata markay dhowr goor ku soo celisay taleefankii balse cidi ka qaadi weyday ayay ku tawaawacday erayo geeraara oo ay ka mid yihiin digdiglow mahiigaan iyo daad rugmadayoo durba keenay badoo duunyadu ku naaxdo biyuhuna durdurayaan sida loo daneeyo ii deeqay wiilkiyo inta gaban da'diisiyo degmadeena socotana isagaan ka doortoo naftu door bidayse daa'iinuu ii soo celi. ma dagaalin aniguyo isma diidin annaguyo ciddii noo ducayn laydbaa midba dacal u riixdee 4 guban daraadoo dibadaha u joognaa duurgal aan ahayne markaan degan idhaahnaba waalidkaana diid
diidani daa'inow allahayow dugmo iyaanu igaga tegin daqiiqado yar gudahood ayaa inantii Salma gabi ahaanba jirkeedu doorsoomay waxaana qabatay xumad ama qandho aan markii hore haynin talaa ku ciirtay arrin baa ku cuslaaday cid ay wax u sheegto ma hayso waxaanay go'aansatay inay u lugayso gurigii Subeer in yar dabadeed haddana waxay isku qancisay in ay ka warsugto muddo saacad ah maadaama uu xanaaqsanaa Salma waxaynu odhan karnaa way ka waaya aragsan tahay Subeer marka loo eego dhinaca waxa loo yaqaano xallinta mushkiladaha qoyska waayo waxay og tahay siyaabo badan oo loo xalliyo marka ay isqabtaan nin iyo ooridiis taasina waxay u sahlaysaa inay uga wareegto dhinacyo kale Salma waxay go'aansatay in aanay ugu tagin gurigooda isla mar ahaantaana aanay taleefanka garaacin balse waxay go'aansatay inay u istaagto bartii ay ku ballami jireen ee geedka hoostiisa waxay tagtay sidii caadadu ahayd geedkii subaxdii hore ee maalintaasi si ay ula kulanto marka uu Subeer shaqo tegayo waxay meeshii taagnaataba goor dambe ayaa wiilkii Subeer oo ugu soo talagala shaqo tag isla mar ahaantaana degdegsan oo daahsan ayaa meel dheer ka arkay gabadha geedka hoos taagan in yar dabadeed markuu soo gaadhay isaga oo ku mashquulsan arrimaha isku dul saarmay ee dhinacyada badan ee noloshiisa ayuu la soo istaagay Salma oo goorahanba sugaysay isaga salaan dabadeed waxay soo dedejisay Salma hadal iyada oo ka baqa qabta inuu weli cadhaysan yahay waxaanay u sheegtay in wax kasta iska dhacaan isla mar ahaantaana hadalkii maalintii dhoweed ku dhex maray taleefanku aanu ahayn mid dhaawici kara aayahooga dambe sababta ugu weyn ee ay hadalka u tidhina ay ahayd inay u caqli celiso balse uu Subeer u qaatay si qaldan Subeer wuu ka soo dabcay halkii hore ee uu taagnaa waxaanu ku yidhi waxaan la yaabanahay hadalladii uu waalidkay igu yidhi iyo kuwaagii oo isku mid noqday Subeer hadalkii ayuu sii watay oo dhinaciisa ayuu ka raaligeliyay Salma waxaana isla qaatay in ay dhan uga soo wada jeestaan halganka dheer ee ay ugu jiraan sidii ay mar uun u noqon lahaayeen qoys wada degan intaa dabadeed waa la ismaaca salaameeyay waxaanu ballan qaaday Subeer sidii uu horeba u ballan qaaday inuu aabihii ku qancin doono arrinta caqabada ku ah waxaan u dhaqaaqay dhinacii dukaankooga oo uu markaa ku sugnaa odaygii Dhamal soo gelitaankii horeba waxa odaygii aabihii ahaa ku yidhi aabbo maxaa kugu dhacay maanta waxaan rabay in aan kuu diro ganacsigeeni Boorama laakiin waxaad moodaa in jirkaaga daal badan ka muuqda ee bal ii xaal waran aabbo Subeer ayaa aabihii ku yidhi aabbo waan iska wanaagsanahay waxaanad ii yeelinna igumuu dhicin yaab odaygii weligii kamuu maqlin odhaahdan oo kale waxaanu aad ula yaabay dhiiranaanta uu kula soo booday kelmaddan maadaama aanu hore uga baran waxaanu ku yidhi odaygu aabbo waa maxay waxaan kuu geystay ee aad ka cabanaysaa ma gabadhaad uga dibtay hore inoogu geysatay ayaad haddana tan inoogu daraysaa mase noqon karnaa dad ku kala tegaya gabadh iyo wax la mida miyaanad ogeyn inaad tahay waaxdaydii midig haddaadse adigu hadalkayga khalad u aragtay maxaa kuu diiday in aad si qabow wax iigu sheegto Subeer ayaa ku soo booday aabihii isaga oo ay labada indhood ilma ka socoto kana naxsan ereyada uu aabihii ku yidhi iyo sida uu aabihii ugu jawaabay oo noqday kaaf iyo kala dheeri waxaanu yidhi aabbo iga raali noqo ee cafi oo isaamax waan ogahay inaan khaldamay waan ogahay inaanu ifka jirin cid aad iga jeceshay imikana haddaad igu tiraahdo iska daa iyo haddaad tiraahdo waan kuu ogolaaday labadaba raali baan ka ahay waxaanan diyaar u ahay inaan qaato ducadaada ee aabbo ii duce oday Dhamal ayaa isku raaciyey oo Subeer ku yidhi gabadhiina waan kuu ogolaaday waanan kuu duceeyey ee aabbo maanta sidee buu qalbigaagu yahay ma ku faraxsan tahay maxaa kale oo aan ku qabtaa jawiga Subeer ee xilligani wuxuu noqday mid aan la tilmaami karin waxaanu ugu jawaabay aabihii ma jirto arrin kale oo iigu ka harsan aabbo intaa dabadeed waxaa la isku soo raacay guriga si loogu qada tago bal haddaba aynu eegno maadaama ay Subeer iyo aabihii ka soo heshiiyeen arrinkii Salma sida uu isku bedelay xiriirkoodii waalidnimo oo markii horeba ay ahaayeen laba isdhalay dhinacna ka saaxiiba iyadoo ay sahashay madinimadu
ayaa subeer mar walba wuxuu ku dhiirin jiray aabbihii inuu u dhalo wiilal kale taasoo ahayd mid labadooda oo qura ka dhaxaysay oo aanay ogeyn reerka intiisa kale waxaana dhex martay wakhtiganna sheekadan subeer ayaa wuxuu yidhi aabbo gacali adiga oo iga raali ah hal aan ku idhaahdo maadaama aniga iyo gabdhaha aad dhashay ee aanu walaalaha nahay aanu hadda nahay dad waaweyn oo gaadhay xilligii ay waalidkoodu abaalgudi lahaayeen sidee bay kuula muuqataa aabbo haddii aanu adiga laftaada kuu guurino gabadh yar oo noo dhasha ubad yaryar taasoo laga yaabo in ilaahay kaa siiyo wiilal kale oo anigana madinimada iga baabiisa oo garab iyo gaashaan ii noqda oday dhamal ayaa isna ku yidhi aabbo taasi ma xuma laakiin sabankan aynu ku jirno gabadha aan guursadaa waxaan u arkaa inay igu soo kordhinayso rabshad waayo hadda waxaan ku hawlanahay maamulkiina qoysnimo iyo dhismaha ubadkayga balse haddii hadda aan guursado waxaan ka mashquulayaa dhismahiina sidaas daraaddeed iminka iima muuqato meel aan ka guursadaa maxaa yeelay sida aad og tahay labadii hablood ee aad walaalaha haydeen mid waa la guursaday midina weli way joogta adiguna sidoo kale waa adigan aan aqal yeelan sidaa awgeed marka aad wada fushaan haddii alla idmo waan iska tashan doonaa oo waayi maayo wadaad yar oo dabka ii shida subeer oo sheekadiisii iyo sheekadii cusbad ee aabbihii iska wada ayaa yidhi aabbo markaan eego dabeecadaha ay naxariista badani ka muuqato ee aad leedahay waxaan moodi jiray inaad tahay qof aynaan jilicsan oo aan diidayn talada iyo waxa danahaaga ku saabsan ee aanu ku soo jeedin laakiin hadda waxaa ii muuqatay in aad adigu igu dhashay madax adayga iyo go'aan qaadashada adag balse haddii aan dib ugu soo noqdo arrintan waxaan aabba ku weydiinayaa sidee baad u aragtaa hindisahaygan cusub ee ku saabsan guurkayga oday dhamal ma aha nin aad wad adag wuxuuna wiilkiisa subeer dheer yahay dhaqan bulshaannimo iyo kaftan badnaan taas oo wiilkiisa wuxuu doonayaba uu u sheego isaga oo qoslaya dabadeed oday dhamal isaga oo la hadlaya wiilkiisa subeer wuxuu ka yidhi aabba subeerow haddii aan kaaga jawaabo arrinta gabadhan aad sheegtay waxaan tafaasiil ka bixin kari lahaa adiga oo i tusa kadibna marka aan araggeeda iyo qiimaynteeda ka bogto wax i weydii subeer intuu qoslay ayuu aabbihii ugu jawaabay aabba bal ka waran haddii ay gabadhu tahay gabadha ugu foolxun gabdhaha magaalada jooga maxaad yeelaysaa oday dhamal hadalka meel fogba kama doonin kumana raagin jawaabta ee wuxuu si degdeg ah u yidhi aabbo horta nin walba waxa u qurux badan gabadha uu ka helo waana tii hore loo yidhi ninbatuu calmadaa waa u cambaralul markaa aabbo gabadha aad soo arkootay sow adiga kumay cajabin subeer baa isna yidhi aabba waa runtaa oo nin kastaa ama qof kastaa qofka uu jeclaado ama uu calmado ayaa aragtidiisu tustaa inuu dadka ugu qurux badan yahay uguna wacan yahay anigana gabadha aan calmaday ayaa dadka iigula qurux badan iigulana qaaya badan walow ay runtii tahay qof qurux iyo qiimaba loo dhameeyey markii ay subeer iyo aabbihii hal cabbaar ah isdhaafsadeen wada sheekaysi iyo doodo kaftan u badan runna aan ka tagnayn waayo waxaa la yidhi waayeel hadalkiisa kaftan ayuu ku dhammaystaa ayuu subeer hadda u hadlayaa si aan kaftan ku jirin oo runta lafteedii ah wuxuuna yidhi aabbo sida ii qorshaysan muddo 2 toddobaad ah ayaa ka harsan wakhtigii aan u qoodeeyey in loo tago gabadha reerkooda si loo weydiisto odayga subeer aabbihii aad buu u yaqaanaa xaaji abtidoon waanu og yahay inuu gabadhaa keliya uu leeyahay wax ubada odaygu isagoo hadalkiisii sii wata wuxuu wiilkiisa ku yidhi aabba waa yahay wax kasta oo aad u baahato anigu maya kuma odhanayo hawshana waan kula dhammaynayaaye ee diyaar garow subeer waa yahay aabbo ayuu ku yidhi dabadeedna waa la kala tegey laakiin subeer isagii oo faraxsan ayuu markiiba tegay xafiiskoodii ganacsiga wuxuuna si degdeg ah u qabsaday taleefanka oo wuxuu la hadlay salma wuxuuna si farxad leh ugu yidhi salmaay wax badan baan sugaynay inaynu mar uun isu noqonno nin iyo ooridii laakiin maanta ayay himiladaydii saraarta gadaanka saaran tahay waayo aabbahay wuu ila oggolaaday arrinteenii aan ula tegay
wuxuuna i siiyey kalsoonidii ugu dambaysay ee qadiyadda guurkeenna. markaa miyaanay xaajadeennu maanta joogin guushii kama dambaysta ahayd? la soco qaybta 30aad ee sheekadan xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka. dhowaan la soco sheekadan jacayl iyo jihaad. buuggani waxa uu xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhaba. waa qiso xambaarsan dhacdooyin ay dhandhamiyeen dhalintii u soo joogtay dhalaaro badan oo qisadan lagu xusay. waa qiso ay ku kulmeen 3 hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay. waa jacayl, jihaad iyo haajiraad. waa qalinkii axmed maxamed yuusuf axmed barwaani ee dhowaan halkan kala soco.